wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya ayaa sheegtay in hoos u dhac uu ku yimid cudurka duumada xilli maanta loo dabaaldegayay maalinta duumada adduunka. wariyahayaga Leelo Cadceed Cismaan ayaa warkan faafahinaysa. warka la xiriira hoos ku dhaca ku yimid cudurka duumada sanadihii ugu dambeeyay ayaa ku soo beegmaya xilli maanta ay tahay maalinta cudurka duumada oo wasaaradda caafimaadku ay qabatay munaasabad la xiriirta maalintaasi. Dr. Yaasiin Nuur Axmed ayaa ka hadlay habka looga hortago cudurka duumada iyo la dagaalanka bulshada in uu ku sii fido qaasatan magaalooyinka iyo dhulka wabiyada. waxaan kale u joognay magaalada Xamar aan Malaawi aan lahayn ayada baawka ka soo gal afgoyn waa la buufinay kii joox ka soo galana waa la buufinay haddana aqalkii waa wada Malaawi aad baa ugu faraxsanahay statistikadaas maxaa yeelay kun iyo xogaa oo ka soo bilaabay ilaa iyo 56 sanadka taasi waxay ku tusaysaa in maxaa la yiraahdaa diagnosticada meel walba la gaarsiiyay daawadana meel walba la gaarsiiyay oo aad moodayso haatan inaan heleyno cudurkaana sidii loo daaweyn lahaa dhab ah. agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Dr. Cabdullaahi Xaashi ayaa ka hadlay dhibaatooyinka cudurka duumada dadka u nugul sababaha iyo isbeddelka cimilada. cudurka malaariyada oo aad la socotaan waad ogtihiin dhibaatooyinka ugu badan oo dalka ku hayo dadka uu ku hayana waa dadka tabarta yar waxa laga wadaa dumarka iyo ciyaalka xoog ka hadli maayo waa dumarka iyo ciyaalka ayaa inta badan waliba dumarka uurka leh labada kooxo ugu daran oo cudurkaanu aad u rafaadiyay labadaas qof weeye cudurkaanu taariikh dheer buu soo maray isbeddelyo badan buu soo maray waad ogtiin sida Yaasiin uu sheegay Xamar waagi hore lagama heli jirin meelaha qaar kood ma jiri jirin meelo badan oo hadda waxa jira uu ka dilaacay oo waxa keena ay yihiin baraagaha waxa la yiraahdaa barkad mosquito macnaha baraagaha meelihii laga qoday ama baraagaha laga sameeyay waxa ka bilaabatay kaneeco hore u jiri jirin. wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliya Xuseen Cismaan Xuseen ayaa sheegay in cudurka duumada iyo cudurrada kale looga hortagi karo iskaashi iyo wacyigelinta bulshada oo loo sameeyo. ururada bulshadana waxaan runtii ku dhiirigelinayaa inay ka caano oo dhiirigeliyaan shacbiga si ay ugu faa'iideystaan 15 sano loogu talagalay in la cirib tiro cudurkan duumada. ururada bulshada waxaa kaloo ku dhiirigelinayaa inay warqado u qoraan petition la sameeyaan u diraan maalqabeennada ganacsatada iyo ururada NGO-yada si ay u garab istaagaan ula dagaalamaan shaqaalaha wasaaradda iyo intii ku lug leh dabargoynta cudurrada. maanta ay ku beegan tahay maalinta duumada ayaa guud ahaan caalamka heerka qaadista cudurka duumada waxa uu marayaa 21% halka dhimashaduna ay tahay 31%. Leelo Cadceed Cismaan, warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho.